السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي ku jirta channelka aad baad u salaamantihiin muuqaalkan waxaan idin ku soo gudbin doonaa dhowr kelmadood oo ay tahay qofku in uu ka fogaado kuwaasi oo dhigaya dabcan meel daciif ah waxay ku dhigayaan mowqif daciif ah hadii aad kelmadahan ku dhawaaqdid ama aad ugu jawaabtid qofka wax ku weydiiyo waxaad u muuqanaysaa qof daciif ah haddaba si aanad qof daciif ah ugu muuqanin ee aad u noqoto qof awood leh oo waxa uu ku jawaabayo huba waa inaad ka fogaataa kelmadahaasi ayaynu geli doonaa insha Allah ta'ala fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelka like saar muuqaalka wixii aad fikrad iyo su'aal iyo soo jeedin noo haysidna noogu reeb qaybta commentiga aynu bilowna muuqaalka kelmadda koobaad waxa weeye way igu adag tahay dabcan marka uu qof wax ku weydiiyo ee aad ku tiraahdo way igu adag tahay waxaad u muuqanaysaa qof aan awood lahayn qof aan waxa uu sheegayo ama waxa laga dalbado aan jawaab sax ah ka gaari karin aan oran karin dabcan ma karayo ma awoodo dabcan hadii wax lagu weydiiyo oo aanad karaynin waxa fiican la tiraad ma karayo jawaab saraxa oo cadaana ma awoodo shayga inaan ku sameeyo ma samayn karayo ma awoodo qofka u cadee laakiin marka tiraahdo way igu adag tahay waxaad u muuqanaysaa dabcan qof daciif ah oo go'aan aan qaadan karin kelmadda labaad waxa weeye waan isku day doonaa waxa qofba dabcan ku yiri ma laga yaabaa inaynu kulmi karno salaasada oo kale kadib waxaad ku tiri waan isku day doonaa ma hubtid waxa jawaabta aad ku jawaabtay waan isku day doonaa dabcan way furan tahay waa waxaan la hubin weey marka inaad qofka aad ku tiraahdid salaasada ma karayo ayaa ka wanaagsan inaad tiraahdid waan isku day doonaa ama dabcan balan u qabo waxaad ku tiraahdaa waan ku soo sheegi doonaa sida wax noqdaan laakiin imika ma karayo kelmadda saddexaad waxa weeye waa la ii sheegay ama waa la igu yiri markaad qofku leedahay waxa la igu yiri wax inaad tahay qof isla weyn waxa la ii sheegay inaad tahay qof isla weyn dabcan yaa ku sheegay ma cadaq cid ku sheegtay haddaba si aanad u noqonin ama aanad u istaagin mowqif daciif waxa fiican inaad tiraahdid waxaan maqlay saddexda kelmadood baan ku soo koobayaa assalaamu calaykum